Yui iyo xubnaha kooxdu waxay la yaabeen sida ay tahay heerka kooxda geesiga haddii ay u arkaan Lloyd mid daciif ah, sababtoo ah weligood ma aysan arag qof hal mar ku ridi kara 5 sixir xoojis ah. Markii Lloyd uu weli ku adkaystay in uu yahay mid liita, Cross ayaa bilaabay inuu si qoto dheer uga walwalo cabirka uu ka qabo daciifnimo. Lloyd ayaa markaas isbedelay mowduuca isagoo weydiiyey sababta aysan u soo celinaynin sixiroolihii hore ee kooxda Alum. Yui waxay sharaxday in walaasheed Alum ay aad u xanuunsan tahay, iyadoo markasta la daryeelayay, isla markaana Alum ay ahayd sahamiye. Dabcan waxaa ku adkaatay in ay labada mas'uuliyad isla qabato, taasoo sababtay in ay nasasho u qaadato shaqadii sahamiyenimada. Dagas wuxuu sheegay in badankooda howlo sahamin ah ay keligood qaban karaan xitaa iyadoo Alum maqan tahay, laakiin howlgallada arranka ah way adag yihiin, si gaar ahna waxay ugu baahan yihiin sixiroole cad si uu u taageero. Markaas ayay dhammaantood si degdeg ah uga walwaleen Alum, inkastoo ay kooxda ka tagtay, haddana weli saaxiib bay la tahay. Lloyd wuxuu dareemay masayr markuu arkay sida ay u daryeelayaan Alum, taasoo ku kaliftay inuu isbedelo mowduuca isagoo weydiinaya haddii ay garanayaan cudurka ay qabto walaasha Alum. Yui waxay xasuusatay in jidhka gabadha uu si tartiib ah ugu bedelmayay dhagax sixir ah oo la yiraahdo Magistone. Lloyd wuxuu xusuustay cashar uu ka helay Marlin markay baraysay sida Magistone uu u bedeli karo noolaha kale, wuxuuna markaas isweydiiyey haddii ay suurtagal tahay in loo celiyo sidii hore. Wuxuu go'aansaday inuu istijaabiyo. Wuxuu ka codsaday Yui inay u kaxayso guriga Alum, markaas ayay halkaa u raaceen. Alum oo jidh ahaan daalan ayaa albaabka ka furtay, wayna ka yaabtay inay aragto saaxiibteed. Markii ay gudaha u galeen, Lloyd wuxuu si degdeg ah u bilaabay shaqadiisii. Wuxuu weydiiyey Alum in ay si faahfaahsan uga warbixiso xaaladda walaasheed, Alumna waxay go'aansatay in ay tuso halkii ay ka sheegi lahayd. Markay furaysay albaabka qolkii Sylvie, walaasheed waxay sii daynaysay tamar sixir xun oo culus. Markaas ayay jiiftay sariirta, Alumna waxay ka qaaday bustaha, gacmaheeda iyo lugaha Sylvie waxay horay u noqdeen dhagax Magistone ah. Alum waxay tiri tamarta Sylvie way waalatay, xaaladeeduna maalin kasta way ka sii dareysay. Waxayna ka baqday in ay dhiman doonto dhowaan. Lloyd ayaa ka codsaday in loo ogolaado inuu caawiyo, isagoo sheegay in uu haysto fikrad ay suuragal tahay in ay bogsato haddii uu sax yahay. Alum way diiday sababtoo ah xataa xirfadlayaal badan oo bogsiinayaal ah oo ay wacday waxay dhammaantood ku yiraahdeen xaaladeeda laguma daweyn karo. Laakiin Lloyd wuxuu sharxay in laga yaabo in Sylvie dhaawac uga soo gaaray dhagax Magistone ah oo nadiif ah, taasoo sababtay in jidhkeedu isagu bedelo Magistone. Wuxuu weydiiyey Alum haddii ay ku dhaawacantay meel leh tamar sixir badan. Waxayna xaqiijisay inay ka shaqaynayeen howlgal la xiriira soo saaridda dhagax Magistone ah oo ku jiray god. Markuu codsaday in laga tuso meeltii dhaawacu ka bilowday, Alum waxay muujisay xabadkeeda hoostiisa oo dhagax isu bedelay, markaas Lloyd wuxuu si buuxda u xaqiijiyey tuhunkiisii. Alum waxay weydiisay sideed ku ogaatay. Isagana wuxuu ku jawaabay in uu ka bartay macalintiisa. Yui waxay Alum ku qancisay in ay hal fursad siiso Lloyd, waxayna ugu dambayn ogolaatay. Markaas ayuu Lloyd si degdeg ah u bilaabay sixir, wuxuu bilaabay in uu nuugo dhammaan tamarta xun ee jidhka Sylvie, laakiin taasna way ku adkaatay inuu xamilo. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ka soo baxay marxaladii hore isagoo sheegay inuu u baahnaa in uu dhimo tamarta Sylvie si ay u dhawaato eber, haddii kale daaweyntu waxba ma tari lahayn. Wuxuu sheegay inuu sii wadi doono nuugista tamarta iyadoo isla mar ahaantaasna uu bogsiinayo, wuxuuna bilaabay sixir kale oo bogsiin ah. Alum waxay dareentay in aanu ahayn sixir bogsiin caadi ah, wuxuuna u sheegay in uu yahay nooc ka awood badan, inkastoo uu yahay mid aan wax ku ool ahayn, haddana wuxuu ku ogolaanayaa in aad gubto tamarta aad nuugayso. Alum way aamustay markay maqashay, Yuina waxay weydiisay haddii uu Lloyd samaynayo wax cajiib ah. Alum waxay ku jawaabtay in uu hal mar isticmaalayo laba sixir oo uu isagu sameeyey, mid lagu bogsiinayo iyo mid lagu nuugayo tamar, taasoo xataa sixiroolayaasha ugu fiican aysan samayn karin. Ugu dambayn, habka Lloyd wuxuu bilaabay inuu natiijo keeno, jidhkii dhagaxa u ekaa ee Sylvie wuxuu noqday mid caadi ah. Markaas ayay Sylvie dib u heshay miyirkeedii, Alumna waxay bilowday inay ilmayso iyadoo ka faraxsan badbaadinta walaasheed. Markii dambe, Alum waxay u sheegtay Yui iyo Lloyd in haddii walaasheed ay bogsato, ay doonayso in ay mar kale sahamin u baxaan. Waxayna codsatay in Lloyd uu sii taageero kooxdeeda halkii ay isaga bixi lahayd. Lloyd wuxuu ugu jawaabay inuusan u qalmin. Laakiin Alum hadalkaas ma aysan maqlin, waxayna u sheegtay in uu ku dhaqmo waxa qalbigiisa ka yimaada. Kadib, Yui iyo kooxda waxay u sameeyeen xaflad ay ugu dabaaldegayaan bogsashada Sylvie, waxayna u mahadceliyeen Lloyd, inkastoo isagu uu weli rumaysan yahay inuusan u qalmin. Laakiin wuxuu arkay sida ay ula dhaqmayaan si naxariis leh, inkastoo ay cusub yihiin, wuxuuna si xishood leh u weydiiyey in loo ogolaado inuu kooxda ku biiro, inkastoo uu isagu dareemayo daciifnimo. Dhammaan way la yaabeen isbeddelkiisa, wayna ku soo dhoweeyeen kooxda. Markii xafladdii dhammaatay, waxay u sameeyeen Lloyd xaflad ku soo dhoweyn ah, waxayna u sheegeen inuu wax walba cuni karo maxaa yeelay iyaga ayaa iska bixinaya qadadaas. Lloyd wuxuu bilaabay inuu cuno sidii qof aan weligii cunto arag, wuxuuna la yaabay dhammaan xubnaha kooxda cusub. Waxay weydiiyeen, miyaa aad u gaajaysnayd? Lloydna wuxuu ugu jawaabay in cuntada magaalada ay tahay mid aad u macaan. Taasi waxay ku noqotay la yaab qof walba, sababtoo ah cuntada magaalada waxay ahayd mid caadi ah. Laakiin Lloyd wuxuu sheegay in marka loo eego wixii uu cunayay carruurnimadiisii, cuntada magaalada ay lahayd dhadhan la yaab leh. Yui waxay xiisaysay carruurnimadiisii, markaas ayuu Lloyd uga warramay. Wuxuu sheegay inuu la noolaa macalintiisa oo cunayay wax walba oo ka soo baxa beerteeda. Mararka qaar waxay soo guratay boqoshaad duurka ka baxday, mar kalena waxay si fudud u shiili jirtay hilibka xayawaanka duurjoogta ah, iyadoo aan xataa wax xawaash ah u darin. Lloyd wuxuu sheegay in sababtaas awgeed uu isagu baray karinta, laakiin xataa weligii ma uusan karin cunto la mid ah tan magaalada. Yui xilligaas kama aysan danaynayn cuntada, waxayse aad u xiisaysay qofka baray Lloyd sixirka. Waxay ku tiri, noo sheeg wax badan oo ku saabsan macalinkaaga, xubnaha kale ee kooxda ayaana sidoo kale la raacay hadalkaas.
silika waxay weydiisay haddii macalinkiisa uu yahay sixiroole cad. Lloyd wuxuu ugu jawaabay in ay ahayd mid aad ugu janjeerta dagaalka, maxaa yeelay mar walba wuxuu arkayay qaraxyo markay keligeed shaqaynayso. silika aad bay ula yaabtay in qof aan ahayn sixiroole cad uu si fiican u tababari karo Lloydna wuu ogolaaday in Marin ay ahayd mid la yaab leh oo aan la qiyaasi karin. silika waxay tidhi, runtii waxaan jeclaan lahaa in aan wax ka barto iyada, laakiin Lloyd ayaa isla markiiba joojiyey, isagoo leh, haddii aad garato runta waxaad ka shalayn doontaa hadalkaas inta noloshaada ka dhiman. Markii ay dhammeeyeen hadalkii ku saabsan Marlin, kooxda waxay go'aansatay inay qabtaan kulan istaraatiijiyadeed oo ku saabsan hawshooda cusub. Yui waxay weydiisay Dagas inuu sharaxo faahfaahinta hawsha sababtoo ah iyadu hadal jeedin fiican ma aha. Dagas wuxuu u sheegay Lloyd in hawshooda tahay inay la dagaalamaan bahalo burburinaya beeraha deegaanka. Silika waxay sheegtay in bahalo badan oo kala duwan ay is urursadeen si ay u sameeyaan koox. Taasi waxay ahayd markii ugu horreysay ee Lloyd maqlo wax la mid ah. Dagas wuxuu sheegay in ay tahay war cusub xitaa iyaga u ah, laakiin waxay tahay in si dhab ah loo qaato. Si lama filaan ah, Cross ayaa yidhi, maadaama aan la dagaalamayno tiro badan oo cadow ah, aniga iyo Yui dib bay nagu noqon doontaa maxaa yeelay weerarada jir ahaaneed kuma fiicna la dagaalanka kooxo badan. Yui way ku raacday waxayna tidhi, silika ayaa markan noo xambaari doonta dagaalka sababtoo ah iyadu waxay isticmaali kartaa sixirada dhul ballaaran. Laakiin xitaa silika way walaacday sababtoo ah sixiradaas waxay cunaan tamar aad u badan. Yui waxay markaas weydiisay Lloyd, ma isticmaali kartaa sixirka weerarka? Wuxuu ugu jawaabay, waxaan isticmaali karaa noocyada asaasiga ah, laakiin natiijadu maaha mid cajiib ah. Markaas ayuu Dagas bilaabay inuu sharaxo qorshahooda dagaal. Wuxuu yidhi, aniga iyo Yui waxaan isku dayi doonaa in aan bahalada iskugu soo ururino hal meel si silika u weerarto mar qura. Cross wuxuu ilaalin doonaa silika iyo Lloyd kuwaasoo diiradda saari doona bogsiinta iyo taageerada. Markii kulanka dhammaaday, qof kasta wuxuu u dhaqaaqay jiif. Laakiin Lloyd wuxuu u dhaqaaqay jihada kale. Dagas ayaa istaajiyey oo weydiiyey, xaggee u socotaa? Lloyd ayaa si xishood leh u yidhi, ma awoodo in aan kiraysto qol ka mid ah hudheelka sababtoo ah waan sabool ahay. Dagas isla markiiba wuxuu siiyey kiish lacag ah, mid ka badan dhammaan lacagtii uu Lloyd arko noloshiisa. Lloyd wuu qajilay wuxuuna yidhi, ma aqbali karo. Laakiin Dagas wuxuu ugu jawaabay inaysan sadaqo ahayn ee uu mushaharka ka jarayo. Lloyd ma diidi karin, wuu u mahadceliyey Dagas wuxuuna ballan qaaday in uu si adag u shaqayn doono si uu lacagtaas u bixiyo. Subaxdii xigtay, dhammaan xubnaha kooxda waxay isugu yimaadeen hortiisa hudheelka, Yuina waxay ahayd tii ugu dambaysay ee timid. Waxay weydiisay, halkee buu yahay alaabtiina, waxayna la yaabtay markii ay dhammaantood u sheegeen in Lloyd uu dhigay dhammaan alaabtooda gudaha kaydkiisa sixirka, sidaas darteed aysan waxba qaadin. Yui si degdeg ah ayay u sheegtay inay iyadana doonayso in alaabteeda la dhigo, Lloydna wuu u fuliyey si dhaqso ah. Yui iyo silika waxay bilaabeen inay la yaabaan xirfadiisa cajiibka ah, laakiin Lloyd wuxuu u sheegay in uu xitaa baro karo dhammaantood sida loo sameeyo. Dhammaantood aad bay ula yaabeen sababtoo ah weligood ma aysan arag qof kale oo isticmaala sixirkaas. Laakiin wuxuu u xaqiijiyey in uu yahay sixir sahlan in la barto, inkastoo korodhka kaydka uu u baahdo tababar. Kadib markaas waxay u dhaqaaqeen hawshooda. Intii ay safarka ku jireen, Lloyd wuxuu bartay muhiimadda ay leedahay inuu qofku ku raaxaysto safarada dheer. Waxay si degdeg ah ku gaareen halkii ay ka dhigan lahaayeen goobta teendhada, taasoo sababtay in aysan waqti lumin sababtoo ah culayskii alaabta wuu baaba'ay. Halka ayuu Lloyd uga soo saaray dhammaan alaabtii kaydka sixirka si ay u dhigtaan teendhada. Yui waxay go'aansatay inay u dhaqaaqdo webiga si ay ugu mayrato, laakiin Dagas ayaa ka xasuusiyey inay weli u baahan yihiin inay ururiyaan xaabada dabka iyo cunto. Lloyd ayaa isxilqaamay si uu ururiyo xaabada, Yuina way uga mahadcelisay isagoo yareeyey shaqada. Markaas ayay la baxday silika si ay biyo isugu raaxaystaan. Dhanka kale, Lloyd wuxuu galay kaynta si uu u soo aruuriyo laamo qalalan. Intii uu kaynta joogay, wuxuu arkay miro uu carruurnimadiisii cuni jiray, wuxuuna go'aansaday inuu u soo qaato kooxdiisa dhowr xabo. Si lama filaan ah ayuu maqalay qaylada Yui. Wuxuu ku orday jihada qaylada wuxuuna arkay mas weyn oo weeraraya Yui iyo silika, kuwaasoo gebi ahaanba difaac la'aan ahaa xilligaas. Lloyd si degdeg ah ayuu u farageliyey si uu u badbaadiyo, wuxuuna weeraray bahalkii si uu uga jeediyo indhihiisa. Markaas ayay Yui iyo silika ordeen dhanka xeebta, Lloydna wuxuu sugay ilaa ay isku duubaan maro si uu ugu tuuro hubkooda. Markii ay heleen, isla markiiba wuxuu ku riday laba sixir oo xoojis ah, Yuina si toos ah ayay ugu booday bahalkii, iyadoo hal feer ku kala jaray laba. Laakiin xataa madaxa bahalkii la jaray wuu sii dagaalamay, silikana waxay u sheegtay Yui iyo Lloyd inay isqariyaan. Kadibna waxay ku riday kubad dab ah oo hal mar ku disha madaxii harsanaa. Waxay aad ula yaabtay sababtoo ah caadiyan awood uma lahaan lahayn in ay weerar sidan u xoog badan samayso, mana aysan fahmin in sababtaas ay ahayd xoojintii uu Lloyd siiyey. Dhanka kale, Yui waxay uga mahadcelisay Lloyd badbaadinta noloshooda, waxayna weydiisay inuu mar kale u dhigo seefteeda kaydka. Si lama filaan ah, markaas ayay maradeedii dhacday, taasoo keentay in Lloyd uu arko muuqaalka qarsoon. Labadooduba way argagaxeen, Lloyd isagoon qalad gelin ayaa haddana si adag loo dharbaaxay. Markii ay ku laabteen xeryaha, Lloyd wuxuu go'aansaday inuu kooxda baro sida loo isticmaalo sixirka kaydka. Wuxuu u sheegay inay marka hore gacmahooda kor isugu keenaan si ay meel bannaan u furaan, laakiin waxba ma aysan fahmin. Silika ayaa talo siisay, waxayna dhammaantood isku dayeen, laakiin waxay u ekaayeen dad la ciyaaraya kubad aan jirin. Lloyd wuxuu islahaa, aniga ayaa ah macallin xun, sababtoo ah wuu ku fashilmay inuu siiyo cashar wanaagsan. Si lama filaan ah, silika waxay ku dhawaaqday kayd, waxayna fursad u heshay in ay furto meel sixir ah oo bannaan. Markaas ayaa dhammaan xubnihii kale ogaadeen in aysan awoodin inay sixir sameeyaan la'aanteed akhris, sida uu Lloyd yeelayo, balse haddii ay afka ku dhawaaqaan, ay waqti kadib baran karaan. Dhowr tijaabo kadib, silika waxay ku guulaysatay inay ulo sixir ah ku kaydiso meel bannaan, balse kuwa kale weli way ku dhibtoodayeen.
habeenkii intii xubnaha kala hurdayeen Lloyd iyo Yui waxay ahaayeen heegan. Yui waxay fadhisay hortiisa waxayna u sheegtay waad ku mahadsan tahay inaad kooxda nagu soo biirtay. Lloyd wuxuu ugu jawaabay anigaaba ku mahadsan maxaa yeelay shaqo la'aan ayaan ahaa. Markaas ayuu xusuustay sida ay Yui uga gonayd in ay howlgalka dhammaystiraan maxaa yeelay macmiilku wuxuu u baahnaa gargaar. Wuxuuna weydiiyey haddii ay jirto sabab gaar ah oo ka dambaysa sida ay uga goon tahay. Yui waxay sheegtay markii aan yaraa tuuladayda waxaa soo weeraray bahalo anigaa keliya ka badbaaday. Markii aan maqalay howlgalkan ma aanan istaagin waxaan rabay in aan dadka ka badbaadiyo xaaladda anigu aan soo maray. Si lama filaan ah Lloyd ayaa u sheegay inay aamusto sababtoo ah waxaa agtooda ka dhawaa bahalo. Yui way digtoonaatay waxayna la baxday seefteeda Lloydna wuxuu ku amray inay si dhaqso ah dadka kale u toosiso. Markii dhammaan xubnuhu ay feejignaadeen waxay wajahaan koox bahalo ah oo cayayaan u eg xamaaro kuwaasoo tiro ahaan aad u badan. Waxay isku dayeen inay si tartiib ah dib ugu gurtaan laakiin nasiib darro Yui waxay ku dul istaagtay laan dhulka taal taasoo samaysay cod bahaladuna si degdeg ah ayay u dareemeen. Dhammaan way carareen. Laakiin xamaaradu si degdeg ah ayay u daba socdeen waxayna ku hareereeyeen dhammaantood. Waxay bilaabeen inay kudkud si xun uga soo tuuraan dabadooda sahamiyaashana waxay difaaceen weerarkii koowaad. Laakiin markaas mid ka mid ah xamaaradu waxay xidhay ulihii silika oo ka qaaday. Kadibna bahaladii waxay ku hareereeyeen xarig xariir ah dhammaan kooxdiina waxay galeen argagax. Lloyd ayaa yidhi waa inaan joojino xamaarada meel ay marayaan ka hor intaanan isku dayin inaan dilno. Isla markiiba wuxuu si degdeg ah ugu xoojiyey saaxiibadii sixir wuxuuna Yui ku amray inay weerarka bilowdo. Yui waxay ku booday hawada waxayna goysay silikii ay ku xidhnaayeen. Cross ayaa isla markiiba u celiyey silika uladeedii sixirka ahayd. Intii ay taas socotay Yui waxay u booday xamaaro kale waxayna xanibtay kudkudii ay ku soo tuurtay markaasna way ka goysay lugaha. Kadib iyadoo ka faa'iidaysanaysa xariirta xamaarada ka baxaysa waxay ku dul booday oo ku dul socotay. Waxayna si degdeg ah u gaartay xamaaro kale waxayna ka goysay lugaha. Markaas ayuu Lloyd u jeestay silika iyo Cross wuxuuna u sheegay inay weerarka bilaabaan. Silika waxay samaysay kubadda dab ah Crossna wuxuu fallaarihiisa mariyey kubadaha dabka si uu uga dhigo fallaaro gubanaya. Fallaarihii gubanayay waxay haleeleen xamaaradii taasoo gubtay. Markii dagaalkii dhammaaday Lloyd wuxuu ogaaday inuu bilaabay inuu amro kooxda dhexdeeda xitaa isagoo ah xubinta ugu cusub ee kooxda. Wuxuu si degdeg ah raaligelin u bixiyey isagoo leh waan ka xumahay waxaan u muuqday mid xadgudbay. Laakiin Dagas wuxuu ugu jawaabay maya aad baad u wanaagsan tahay waxaad leedahay sifooyinka hogaamiye dabiici ah. Dhammaan xubnaha kalena way ku raaceen waxayna u sheegeen in uu sii wato door hogaamineed marka la jiro dagaalka. Subaxdii xigtay qof walba wuxuu si fiican u bartay sixirka kaydka si uu alaabtiisa u qaato. Markii ay safarkii sii wateen Lloyd wuxuu maskaxdiisa isweydiiyey sababta xamaaradu halkaas u joogeen balse halkaas ayay ku dhammaatay muuqaalka. Xasuusin ha ilaawin inaad like saar iyo subscribe garayso channelka. Waad ku mahadsan tahay daawashada waxaana kuu rajaynayaa in aan mar kale kuu soo muuqdo.